24bilowd oo uu jirtay isjiid iyo saameyn ku saabsan arrinta gobolka Gado oo doorashada Soomaaliya saameyn culus ku lahayd waxa imika muuqatay in maalmuhu ay isbedeleen wax badan oo xagga siyaasadana hadda ay muuqanayaan inay soo ifafaale leeyihiin Cabdirashiid Janan wasiirkii amniga ee Jubbaland ahaa mid ka mid ah xubnaha saameynta ba'an ku leh gobolka Gado waxa uu ka tanaasulay fikirkii siyaasadeed ee uu qabay ee ah maamulka Jubbaland ee ka dhisan Kismaayo inuu ka shaqeeyo gobolka Gado waxaana qorshihiisa uu ku biiray dowladda federaalka ee Soomaaliya doonisteeda ku wajahan xaaladda gobolka Gado sidaas oo kale xubno kale oo ay ka mid yihiin saraakiil iyo wasiirro xubno ka mid ah golaha wasiirada ee Jubbaland kuna sugnaa gobolka taabacsanaa siyaasadda Jubbaland waxa ay hadda u diga roganayaan dhanka dowladda federaalka durba waxa la isweydiinayaa sida ay Jubbaland Kismaayo u maareyn doonto marxaladan siyaasadeed ee soo korortay dadka siyaasadda falanqeeya lana socda xaalka Jubbaland waxa ay ku sifeynayaan in talaabaha hadda muuqda ay muujinayaan culays weyn iyo cadaadis xoogan oo xagga siyaasadda ah oo wajahayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo sanooyinkii dambe ee ugu dambeeyay maamulaya Jubbaland dad badan waxay u arkaan Axmed inuu ku raagay kursiga siyaasadda ama ugu sarreysa madaxtinimada Jubbaland ayna tahay hadda inuu la yimaado furfurnaan siyaasadeed soo celiyo Jubbaland midaysan isla markaana uu ka baxo xayndaabka hadda uu ku jiro dadka qaari waxa ay ku sifeynayaan Axmed inay u tahay maalmo siyaasadeed oo wanaagsan marka loo eego in kuraas siyaasadeed oo ay kaga fadhiyeen qaar ka mid ah xubnaha ka soo jeeda gobolka Gado hadda dhankiisa ay u bannaan tahay laakiin aragtida dambe waa mid jaban marka la fiiriyo marxaladda siyaasadeed ee xilligan uu ku sugan yahay iyo taageerada uu u baahan yahay Jubbaland midaysan inuu helo waxa ugu weyni waa sida loo maamulayo kuraasta doorashooyinka ee taalla Garbaharey waa culays kale oo waqtiga iyo maalmaha doorashooyinka ee Soomaaliya ay keeni doonaan sida uu Axmed u maareeyana waa arrin ku suntanaan doonta sooyaalkiisa siyaasadeed xogo iyo macluumaad kala duwan oo la helay waxa uu tilmaamayaa in madaxweynaha Jubbaland iyo xubno taageersan ay bilowgii ka hor inta uusan isdhiibin Cabdirashiid Janan qaadanna heshiiska siyaasadeed ay ciidan hubaysan biliqaysteen guri uu ku lahaa Kismaayo waa dhaawac weyn oo ku yaala maamulka Jubbaland gaar ahaanna maamulka Kismaayo iyadoo si weyn loo og yahay in Janan muddo dheer uu leylinayo ciidamada Jubbaland qayb lixaadna uu ka ahaa xoreyntii dhulka deegaanada kala duwan ee Jubba sida hadda muuqata waxa la filayaa waji cusub oo siyaasadeed inuu bilowdo Cabdirashiid Janan ma uusan qarsan maalmihii uu ku biiray dowladda federaalka in uu dib u bilaabi doono arrinta ku saabsan Jubbaland midaysan waxaana uu sii idaafeeyay in maamulka uu hogaamiyo Axmed Madoobe uusan ahayn mid sharci ah taas oo u muuqanaysa bilowga ifafaala siyaasadeed oo ku wajahan arrinta gobolka Gado ka sokow inay ka durugsan tahay waxaaba idin hubaa haddii mabda aad u istaagtaan hoggaanka waa isku baryaysaan maalmo ka hor wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee Jubbaland waxa uu isna ka bilaabay gobolka Gado bilowgiina ahay lab siyaasadeed oo halis badan Jubbaland midaysan loona dhan yahay raadinteeda waana karaarka siyaasadeed ee xoog lahaa kaasoo aw xirsi iyo koox siyaasiyiin oo la socota ay laf dhuun gashay ku noqdeen Axmed Madoobe oo u arkay halis weyn oo xagga siyaasadda ah kana soo wajahan Gado sida xaalka Gado loo wajahay waxa uu muujinayaa in bu'aale ay tahay bartilmaameed weyn oo hadda ay ku socdaan huwanta gobolka Gado ku midowday waxaase la isweydiinayaa maalmaha ay qaadan karto xilli Soomaaliya u diyaar garoobaysa tubta doorashooyinka iyo qabsoomidooda dadka sida dhow ula socda xaalka Axmed Madoobe iyo dhanka Kenya waxa ay rumaysan yihiin Axmed uu qaadi doono tallaabooyin muujin kara in ugu yaraan uu soo celiyo haddii ay si kasta ugu qaadanayso qayb ka mid ah xubnaha hadda ka tagay maamulkiisa sidaas oo kale wararka sheegaya in cunaqabatayn ama lagu soo rogay xayiraado xubno taageersanaa Cabdijanan oo ku sugan Kismaayo waa halis weyn oo siyaasadeed taasoo bohol ka sii ridaysa xaalka siyaasadeed ee Jubbaland saami qaybsiga Jubbaland lagu dhidbay waxa uu muuqanayaa mid faraaruq xoog leh hadda uu soo wajahay Axmed sida uu maareeyana
waa marxalad weyn oo indhaha lagu hayo tubta doorashooyinka ama qabsoomidda doorashada Soomaaliya waxa ay ku suntanaan doonta xaaladda gado Jubbaland kala dhantaalan waxa kale oo raaci doona sida Axmed laftirkiisu uga badbaadi doono haddii kooxda hadda xukunka Soomaaliya haysa ee uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ay mar kale soo laabtaan waxay uga dhigan tahay wadkiisa siyaasadeed oo soo degdegay Agoostana waxaa la rumaysan yahay in aan la isla gaari doonin si nabad ah haddii uu Farmaajo soo laabto ka horna la qabto doorashada madaxtinimada Soomaaliya haddiise 3 bilood ee nagu soo wajahan ay dib u dhacdo doorashada Soomaaliya waxa ay ka dhignaanaysaa in doorashada la galo iyadoo xaalka Jubbaland uu ka duwan yahay sida maanta Kismaayana aysan haysan naalooyin badan oo maanta ay dul hoganayso